wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo saaka safar cirka ah kaga soo kicitamay caasimadda Hargeysa ee Somaliland ayaa soo gaaray magaalada Cerigabo iyadoo ay siday madaxweynaha diyaaradda Flystar waxaana wafdiga madaxweynaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Cerigabo ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda madaxda gobolka iyo degmada soo dhaweyntaasi kadib waxa loo soo galbiyay gudaha magaalada Cerigabo halkaasi oo shacabkii kala duwanaa ay ku soo dhaweeyeen wafdiga madaxweyne Biixi oo aakhirkii gaaray aqalka madaxtooyada Cerigabo waxaana halkaasi madaxweynuhu uu xariga kaga jaray dhismaha madaxtooyada Cerigabo oo dhawaan la dhameeyay waxaana madaxweynaha iyo wafdigiisa isugu jiray wasiirada gudoomiyaasha shirgudoonka baarlamaanka iyo madaxdii kale ay ka qayb galeen munaasabad kooban oo ka qabsoontay hoolka madaxtooyada magaalada Cerigabo waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay maayirka degmada Cerigabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse wafdiga ballaaran ee loo yimi madaxweynuhu hogaaminayo waxa hadda inuu talagalay waa soo dhaweyn aan soo dhaweynayno wafdigeena sharafta leh iyo madaxweynaha way loo bilaabi doontaa isaaranka iyo shirarku way loo dambeynayaan laakiin maanta waxaan idinka mahadnaqaynaa madaxda dhaqanka ee faraha badan ee halkan fadhida oo ilaa aroortii joogtay garoonka dayuuradu ka aadan oo u joogtay soo dhaweynta waftigan ballaaran aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa iminkana hadalku wuxuu ka ekaanayaa soo dhaweyn oo keliya way loo dambeyn doonaa shirarku mudane madaxweyne gobolkii Sanaag ee aad maanta timid waxaanu marka koowaad kaaga mahad celinaynaa oo aanan ilaabi doonin kashayada iyo laabaha iyagana ku ooli doona inaad dawladii oo dhan hadday tahay golayaal iyo haddii ay tahay wasiiro noo soo rartay oo noogu keentay gobolka aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa mudane madaxweyne waa taariikh may dhicin labada gole oo wada socda oo shirgudoonkoodii marayo iyo madaxweynihii qaranka gobol ay booqdeen oo booqasho ku yimaadeen may dhicin maanta ka hor aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa haddaanu reer Sanaagnahayna wax weyn bay noo tahay waxaanuna ilaahay ka rajaynaynaa ilaahay iidankii in wanaag iyo barwaaqo iyo bashbash iyo il aad jeclaysataan idinkoo naga arkay inaad naga laabataan geestiisa madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo gabagabadii halkaasi ka hadlay ayaa u mahad celiyay shacabka Cerigabo iyo madaxdooda ee soo dhaweeyay waxaana uu faahfaahiyay ujeedka socdaalkiisa anaga farxad bay noo tahay talada waa ugu nimid waxaan isweydiinay haddaynu gobolkii tagayno awoowayaasha taariikhda uduga ilbaxa yaanu kala harimayne aan habmeesha degno Soomaaliland oo dhan saasay kalgacal baan idinka sidnaa salaam baan idinka sidnaa ummadda Soomaaliland oo dhan qadarin baan idinka sidnaa socdaalka dawladda tumina waa rabitaanka shacabka Soomaaliland ee walaalihiin oo dhan oo yiri mar haddii maanta xagga loo kacayo gobolkaas waana daraf taariikhdana waa leeyahay dalkaana waa leeyahay waxa soo nimciina way degan yihiin khayraadkina waa ku badan yahay badiyo bariba dahab dibad yaal kallu soo dabaalanaya xoolihii oo meesha hal culaysyaala tago saasaan idinku mid haddii ilaahay wixii hawlaana weyn geli doonaa aad iyo aad baan idinka mahad celinaa magaalada guud ahaan madax iyo mijo rag iyo dumar rool iyo caruur soo dhaweyntii kaliya laabtasha ahayd salaadiintii iyo madax dhaqameedkii iyo madaxdii ilaa airportka ilaa guriga taagreydeenna aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa Cabdirasaaq Sugulle MMTV Cerigabo